laanta BBC ee baaritaanada BBC Africa ayaa soo ogaatay shabakad sharci darro ah oo dumarka ku khiyaameeya dumarka Afrikaanka waliba iyagoo ku qasba inay jidhkooda ka ganacsadaan iyagoo bartilmaameedsanaya ragga badan ee Afrikaanka ah ee magaalada New Delhi ku nool. haweenka halkaasi la keeno ayaa badi ka yimaada Kenya, Uganda, Nigeria, Tanzania iyo Rwanda. haweenka khaliifadaha ah ayaa kala hada baasaboorada dhaqdhaqaaqooda xadida ilaa inta ay bixinayaan kharashaadka qaaliga ah ee Hindiya lagu keenay. gabadh geesiyada Grace oo Kenya laga soo tahriibiyay waxa ay la shaqaysay BBC Africa si qarsoon bay ula shaqaysay. Aisha Afrax ayaa inoo haysa faafahinta. magacaygu waa Grace waxaan ahay heesaa qoobka ciyaaro iyo jilaa waxaan rabaa inaan caan noqdo oo nolol fiican helo. Grace xayeysiis shaqo dalka Hindiya ah ayay barta WhatsApp ku aragtay. lacag fiican markaan arkay waan dalbaday. balse markay New Delhi timaaday waxaa la geeyay guryaha gabdhaha jirkooda ka ganacsada. baasaboorkeediina waxaa ka qaadatay haweeneydan loo yaqaan Goldie. haweeneydan lacagta tikidka ayay Grace ka soo bixisay waxayna ku tiri $4,000 baan kugu leeyahay. taasoo ah 7 jibaar lacagta tikidka Hindiya oo ay ku timid. kaliya hal wada ayaa u furnayd Grace inay deyntan isaga bixiso. inaan ka ganacsado jirkayga ma ahayn wax aan rabay. waxaan ku ducaysanayay in Ilaahay uusan iga dhigin taas mid aan sameeyo intaan noolahay. Grace qolkan ayay kula noolayd 4 gabdhood oo kale oo loo soo safriyay inay iyaguna jirkooda ka ganacsadaan. marar badan guriga ayaan keeni jirnay nimanka, mararka qaarna hoteelada. cambuur fiican xiro marka aad macaamiisha la galmoonayso. Grace waxay naga ogolaatay inay xirato kaamarada qarsoon si ay wax nooga tusido dunida arxan darrada ah ee gabdhaha jirkooda ka ganacsada. dumarkan ayaa la geeyaa baararka loo yaqaan kitchens si niman loola kulansiiyo. baararkan ayaa ah kuwa sharci darro ah oo ay nimanka Afrikaanka ah ee New Delhi ku nool ay ku fadhi ku diriraan. Grace ayaa noo tilmaamtay ninka madaxa ka ah shabakadda gabdhaha jirkooda ka ganacsada. magaciisa waa Eddie. baaritaanka intii aan wadnay wuxuu Grace ku dhiirigeliyay inay gabar kale ka keento Kenya. Grace ayaa iska dhigaysay inay arrinka xiiseynayso. waa sidee hanaanka gabdhaha loo keeno waxba kama garanayo aniga. qofka markuu Nairobi yimaado baasaboorka ayaa loo samaynayaa xitaa shahaadada dhalashada lacag ayaan ku soo saarnaa. sidan ayay shabakadahan ku sii ballaartaan. dumarkan ayaa deynta isaga bixiya lacagta ay ka helaan ka ganacsiga jirkooda kadibna iyaga ayaa dumar kala keena. Eddie waxay BBC-du la xiriirtay 3 jeer. wuu diiday arrinka ah inuu dumar ka soo safriyo Kenya oo uu Hindiya keeno. Goldie iyaduna wax jawaab ah kama soo celin eedeymaha loo jeediyay oo ah inay maamusho guryaha gabdhaha jirkooda ka ganacsado. laanta baaritaanada BBC-da ee Africa ayaa Grace ku soo nabad celisay dalka Kenya. nolosheeda ayayna mar kale dib u bilaabatay.